Afrika waxay leedahay dhowr kamid ah webiyada ugu waaweyn adduunka qaar badan oo webiyadaasi kamid ah ayaa ka soo daadega taagaga qaaradda iyaga oo ka soo gudba biyo dhacyo iyo hakiyayaal xiriirsan kuwaasi oo aan ku fiicnayn gaadiidka webiyada mara ee la isticmaalo sida doomaha hase yeeshee waxaa laga sameyn karaa tamarta leydhka ee biyaha laga dhaliyo jararkaasi ama biyo dhacyadaasi nasiib darro webiyada qaaradda Afrika ma gaarsiisna meel kasta sidaas daraadeed waxa dhibaato ah in si waxtar leh looga wada faa'iideysto biyaha webiyada dhul aad u ballaaran ayaa ay roobabku ku yar yihiin meel kalena waxa ay helaan roobab aan ku filayn oo aan la isku haleyn karin halka ay meel kalena biyuhu ay ku badan yihiin oo roobabku ay fatahaada sameeyaan waxa jira biyo fadhiisino ballaaran sida kan lagu magacaabo Saad ee ku yaala dalka koonfurta Suudaan daadadka iyo sidoo kale fatahaadaha ayaa waxyeelo markasta dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi haddii aynu soo qaadano webiyada ay qaaradda Afrika caanka ku tahay dunidana sida weyn looga yaqaano waxa kamid ah webiga Niil waa webiga ugu dheer adduunyada oo dhan inta webi ku taala ishiisa ugu weyn ee uu ka soo qulqulaa waa harada Victoria ee ku taala bariga Afrika waxa xagga waqooyi uga soo rogmadaa laagta la yiraahdo Niilka Cad oo soo mara wadamada ay kamid yihiin Uganda iyo Suudaan Khartoum ayaanay Niilka Cad uu kula kulmaa laagta labaad ama qaybta labaad ee webiga Niil oo loo yaqaano Niilka buluuga ah kaasi oo ka soo qulqula buuraha jooga sare leh ee galbeedka wadanka Itoobiya halkaasi ayaa uu webigu ka sii qulqulaa ilaa iyo waqooyiga qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Masar oo si weyn u dhaxmaro si weyn uga faa'iideysta biyaha webiga Niil oo sidoo kalena taariikhda wadankaasi Masar qayb weyn ka ah nolol maalmeedka dadka reer Masarna uu si weyn ugu dhisan yahay webigaasi Niil ugu dambeynna waxa uu ku shumaa webiga Niil badda cad laga soo bilaabo harada Victoria ilaa badda cad ee uu ku dhamaaday ee uu biyaha ku shubo webiga Niil dhererkiisu waxa uu gaadhaa 6853 kilomitir waxaanu maraa 11 dal oo ku yaala qaaradda Afrika oo ay kamid yihiin dalalka Ethiopia, Eritrea, Suudaan, Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Masar, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Koonfurta Suudaan haddii aynu soo qaadano webiyada kale ee caanka ah ee qaaradda Afrika ku yaala webiga Congo waa ka labaad ee ugu weyn horena waxa loogu magacaabi jiray webiga Zaire maadaama oo dalka Congo oo la magac yahay hore loo oran jiray Zaire waana webiga ugu gunta dheer caalamka oo dhan waxaanay qotadiisu gaadhaa in ka badan 200 oo mitir dhererkiisuna waa 4700 oo kilomitir waxa uu kamid yahay kuwa ugu horeeya webiyada ugu biyaha badan adduunyada oo dhan maadaama uu yahay webiga ugu qotada dheer webiyada caalamka webiga Congo waxa uu badda ku daraa 8% biyaha ay webiyada Afrika oo dhami ay badda ku daraan maadaama uu yahay webiga ugu biyaha badan webigani waxa uu maraa dhowr dal oo kala ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Angola Jamhuuriyadda Congo Tanzania, Cameroon, Zambia, Burundi iyo Rwanda waxa ay biyihiisu ku shumaan dhul badkiisu gaadhayo 4.1 kilomitir oo square ah ama laba jibaaran biyaha badan ee webigan mara waxa keena roobabka dhulbadhaha ee sanadka oo dhanda ah qaybta dhexe ee webigu waxa ay ku haboon tahay gaadiidka webiyada mara sida doomaha oo kale maadaama oo ay isku siman tahay laakiin marka uu webigu ku dhawaado qaybtiisa hoose waa uu yaraadaa ama waa uu dhuubtaa taasna waxa dhib kala kulma gaadiidka isticmaalo webiyada waxaanu yeeshaa biyo dhacyo ay biyuhu ka shalwadaan oo laga sameyn karo tamarta biyaha ee leydhka laga dhaliyo kadibna waxa uu galaa oo ugu dambeyn ku shubmaa badda webiyada waaweyn ee kale ee ku yaala qaaradda Afrika waxa kamid ah webiga Niger oo ah kan saddexaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waxa uu ka soo bilaabmaa buuraleyda sare ee Fouta Djallon ee dalka Guinea oo 250 kilomitir oo kaliya u jirta
badweynta Atlantikada hase yeeshee nasiib wanaag halka uu webigu xagga badda uu u shubmi lahaa ee uu meel dhow badda ka gali lahaa waxa uu webigu u qulqulaa dhinaca waqooyi ee godanka Chouf ee bariga Timbuktu ee dalka Mali ayaa webigu u leexdaa oo si weyn dadku ay uga faa'iideystaan biyuhuna ay ku faafaan oo halkaasi baad iyo waliba barwaaqo weyn u sababa waxaanu ku darsamaa webiga Benin ee ka soo rogmada saguna buuraha Jo waxaanu ugu dambeyn ku soo qulqulaa dhinaca badweynta Atlantikada halkaas oo uu badda ka galo gacanka webiyada kale ee qaaradda Afrika waxaana kamid ah webiyadaasi Sambisi Limpopo Orange Guinea sidoo kale qaaradda Afrika waxa ay caan ku tahay dhanka harooyinka iyo biyo fadhiisinada harada Victoria oo kamid ah kuwa adduunka ugu waaweyn sidoo kalena ay dalal badan oo kamid ah dalalka harooyinka ee bariga Afrika ay si weyn uga faa'iideystaan ayaa iyaduna kamid ah kheyraadka ay Afrika sida weyn ugu faanto haradaasi waxa uu badkeedu ka balaaran yahay 66,400 oo kiiloomitir oo iskuweer ah waxaana haradaasi wadaaga dalalka ay ka mid yihiin Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo iyo dalal kale oo kamid ah kuwa bariga Afrika harada labaad ee Tanganyika oo iyaduna kamid ah harooyinka qaaradda Afrika gaar ahaan bariga Afrika ayaa iyadana ballaceeda waxa uu dhan yahay in ka badan 32,890 kiiloomitir oo iskuweer ah harada Malawi ama Niassa dadka qaar u yaqaanaan ayaa iyaduna badkeedu waxa uu ka badan yahay 30,800 oo kiiloomitir oo iskuweer ah harada Turkana ayaa iyadana ballaceedu waxa uu gaadhaa 8,660 kiiloomitir oo iskuweer ah halka harada Alberta iyadana uu ballaceedu ama badkeedu uu ka badan yahay 5,500 oo kiiloomitir oo iskuweer ah sidoo kale qaaradda Afrika waxay leedahay harooyin dad samee ah oo kuwa la sameeyay oo tacab iyo maal bilaadan lagu sameeyay waxaana kamid ah harada Volta oo iyadana badkeedu uu ka badan yahay 8,480 kiiloomitir oo iskuweer ah oo ay dadweynuhu si weyn uga faa'iideystaan biyuhuna aanay ka goyn iyo jilaal sidoo kale harada Kariba ayaa iyadana badkeedu waxa uu gaadhaa 5,350 kiiloomitir sidoo kale harada Aswan ayaa iyadana badkeedu yahay 5,120 kiiloomitir oo iskuweer ah ogobay harooyinkaasi ugu dambeeyay ee aynu soo carabaabnay waxa ay ka mid yihiin harooyinka aadanuhu sameeyo ee adduunyada ku yaala kuwa ugu waaweyn qaaradda Afrikana ay sida weyn ugu faanto dadkuna sida weyn uga faa'iideysto